waxaan shacbiga jamhuuriyadda Somaliland u xaqiijinayaa in xarunta CID-da imika la igala hadhay xogeeyay arrimaha gudaha ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax kaasoo aan anagu xisbi ahaan aaminsanahay inay sifa sharci darro ah lagu xidhay waana dhiilo hor leh oo Somaliland ku soo korodhay waxaan aad iyo aad u cambaaraynaynaa xariga cagajuglaynta iyo handidaadda lagu hayo axsaabta qaranka saxaafadda iyo shacbiga jamhuuriyadda Somalilandba waxaan aaminsanahay xariga xogayuhu inuu xaaraan yahay inuu xarig siyaasadaysan yahay Somaliland taariikhda markii koowaad weeye ee hoggaan xisbi la xidho imikana xogayaashii baa loo soo jeestay in la xidho waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba cambaaraynaynaa xariga foosha xun waxaan leeyahay shacbiga Somaliland uma dul qaadan doono waxaan ugu baaqaynaa inay ka dhiidhiyaan xariga soo noqnoqday haddii kale qof walba halkiisa ugu imanaysa maanta Ramaaxo kaliya la xidhay bari laakiin cid walba waa la xidhaya dalkani wuxuu uu ku yahay dal waa sharciga weey haddii sharciga la ilaalin waayo oo awood la isu adeegsado waxay noqonaysaa siyaasiyiintu inay istifaacaan oo ay boori gaar yeeshaan oo ay silaaliyaan oo nin walba beeshiisu ilaaliso ayay noqonaysaa waxaan ugu baaqaynaa dhammaan shacbiga jamhuuriyadda Somaliland inay xariga ka dhiidhiyaan gaar ahaan deegaanka uu ka soo jeedo waxaan leeyahay waa in laga dhiidhiyaa waa in la tusaa xarigaasi inuu xarig xaaraan yahay uu xarig sharci darro yahay waxaan ugu baaqayaa taageerayaasha xisbiga inay xariga dareenkooda ka muujiyaan waxaan leenahay xukuumaddu degdeg xorriyadiisa ugu soo celiso maadaama aan sifo sharciya lagu xidhin waxaan leeyahay degdeg xukuumaddooda waayo annaga waaran nala tusayna ma jiro waaran nala tusayo imika Faysal Xiise tusayna ma jiro markaan ku war ninkan waxaad ku xidhay tus iimuu sheegin inuu sifo sharciya u maray xarigiisa galun buu kuuray isagoo anigana gogoshiisa soo qaadan biigu marka waxa weeye waxay niyad jab ku tahay nidaamkii dimuqraadiga ahaa ee aynu qaadanay buu niyad jab ku tahay nidaamkii aynu dhoodhoobaynay ee geeska Afrika aynu ka hayn iftiinka baxaya ayay dhabar jab ku tahay waxaanu leenahay xarigaasi haddii uu sii socdo wuxuu wiiqayaa iyadoo aynu ognahay adduunyadiiba imika daynay dhabarkeena soo jeedisay haddana wuxuu sii wiiqayaa intii yarayda nagaga hadhay adduunyada iyo sumcadda qarankaba uu dhaawacayaa xarigaasi waxaan leeyahay xorriyadiisa degdeg ah loogu soo celiyo sabab ma loo xidhay xogayaha Ramaax sabab ma loo marka laga tago eed hore oo loogu yeeray halkan oo ka jawaabay oo ahayd gudoomiyaha golaha wakiilada soo eedeeyay oo ka jawaabay mooyaan annagu wax kale oo ninka loo haysto waxaan aaminsanahay in lagu haysto maxaad u hadlaysaa maxaad u cambaaraynaysaa xukuumadda maxaad waxa uga hadlaysaa ayaan aaminsanahay in lagu haysto ninka markan aad leedahay way deegaankiisu ka caadi fiican maanay loo qaadanayn in qabyaaladii aad soo horanaysaa maanu ninku xisbi ka tirsanayn marka leedahay deegaankiisu way fiican maya anigu dareenkan ka hadlaya dareenka shacbigan ka hadlaya dareenka shacbiga jamhuuriyadda Somaliland malaade waxa sawanad maqlayne waxaan horreysiyay shacbiga jamhuuriyadda Somaliland inta jecel nidaamka cadaaladda iyo xorriyatul qowlku dareenkooda ka sameeyaan dareen celinaha ka sameeyaan baan leenahay marka waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda waxaan leenahay xarigan iyo cagajuglayntan iyo damdamtan joojiya baan leenahay xukuumaddu waxay bilowday xukuumadii hore waxay bilaabi jireen iyadoo ay sanad ka harsan tahay dhicitaankoodu tan iyadoo bilowa 2 sano iyadoo aan gaarinba ay xarigii iyo damdamtii iyo cagajuglayntii bilowday waxaanay ogeyn in shacbigana uu yahay shacbigii dawladdii aad ogeyd ee geeska Afrika awood lahayd kala tuuray inuu yahay ayaanay xukuumaddu iyagaabay haayeen kuwii imika kuwan dalka haystaa kuwii hadday cadaalad darrada iyagu ay ka dagaalameen imika iyagu ku dhaqmaan cadaalad darradu Muuse yiri duurkan ka gal hadduu maanta isagu sameeyo de waxa weeye waan ka kicisanayn bay noqonaysaa siyaad barreena cayb kale waan ka kicisanayn noqonaysaa marka waxaan ugu baaqaynaa ugu dambeyntii on leenahay
waa dhiilo ku soo korodhay siyaasadda waa dhiilo ku soo korodhay shuruucda dalka jamhuuriyadda Somaliland waxaanay noqonaysaa in siyaasiyiintu ay dib u tashadaan ay noqonaysaa